assalaamu calaykum daawade ku soo dhowow kanaalka caafimaad tvs maanta halkan waxaynu kaga hadlaynaa cuntooyinka yareeya baruurta caloosha haddaba baruurta caloosha gasha ayaa noqotay xaqiiqo nolosha dad badan oo malaayiina isla markaana ku nool dunida waxyaabo badan ayaana ka masuula baruurta caloosha gasha waxaana ka mid ah habnololeedkeena ama habnololeedka qofka iyo isku aadka cuntada sidaa daraaddeedna ma yara baadhitaanada laga sameeyey waxyaabaha ku saabsan buurnida xadkeeda dhaaftay haddaba daawada ama talada ugu muhiimsan ee la siiyo ruuxa la nool buurnida ama xaydha caloosha waa inuu jimicsadaa sidaa daraaddeed cuntada oo la yareeyo iyo xaddiga aad ka qaadanaysa iyo jimicsi aad samayso ayaa muhiima oo weliba aad kula dagaalami kartaa baruurta caloosha sidaasay tahayna maanta halkan waxaan idiinku soo bandhigayaa cuntooyinka yareeya baruurta caloosha iyo caloosha guud ahaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna ugu horeynta wadayaal qaraha ama xabxabka qofba magac buu u yaqaanaye ayaa waxa uu ka mid yahay cuntooyinka yareeya xaydha caloosha ama baruurta jidhka guud ahaan waayo qaraha ama xabxabka cilmi baadhayaal badan ayaa ka soo saaray qaraha ama xabxabka inuu yareeyo subagga jidhka wuxuu kaloo saameyn ku yeeshaa dhiigga halbowlaha isagoo yareeya khatarta buurnida caloosha dhinaca kalena waxaa ka mid a cuntooyinka buurnida iyo xaydha caloosha yareeya tamaandhada ama yaanyada iyadana qofba magac buu u yaqaanaye waxaana ka buuxa fiitamiino aad u badan kuwaasoo si toosa buurnida caloosha ula dagaalama haddaba yaanyada waaweyn haddii 9 xaboo yaanyada loo yaqaano ogos actadacdianoic acid aad maalin walba shiidato wax weyn ayaad isaga dareemi doontaa ama isaga garan doontaa insha allah waxaa kaloo daawadayaal ka mid a cuntooyinka yareeya baruurta iyo weliba xaydha caloosha waa raashinka badda yacni cuntada badda waayo waxyaabaha badda laga soo saaro dhammaan caalamka oo dhan waa laga jecel yahay sababtoo ah dhammaantood waxyaabahaasi waa kuwa aad loo hubo caafimaadkooda waana kuwa xakameeya baruurta dagaal joogto ahna ku haya buurnida iyo caloosha sidaa daraaddeed maqaayadaha sameeya waxyaabaha aan keenin buurnida ama baruurta caloosha intooda badan waxay isticmaalaan cuntada badda laga soo saaro sidaasoy tahayna dadka hilibka cad cuna sida hilibka kalluunka oo kale ama digaaga oo kale cuna way ka caafimaad badan yihiin dadka hilibka cas ama hilibka guduudan cuna geesta kalena daawadayaal waxyaabaha la dagaalama buurnida iyo xaydha caloosha waxaa ka mid a khudradda cagaaran khudaarta cagaaran waxaa caalamka looga yaqaanaa nafaqeeyaha qofka bini'aadamka sidaasoy tahayna waxaa laga helaa faa'iidooyin badan haddaba khudradda cagaarani waxa ay leedahay awood buuxda oo ay kula dagaalanto buurnida caloosha sidaasoy tahayna waxaa ku yar wax dhalin kara buurnida caloosha haddaba qofkii cuna khudradda cagaaran sida saladhka oo kale quraacda ka hor waxa ay siisaa caafimaad calooshuna ma buurato qofka ugu dambeyntii daawade cuntooyinka guba baruurta isla markaana xaydha caloosha jara waxaa ka mid a shaaha bigayska haddaba ka dhiga shaahaaga mid bigaysa maalin kasta yacni midka gaduudan ama madowga ah sidaasoy tahayna shaaha bigayska waa midka la cabo oo xaafad kasta oo Soomaaliyeed lagu cabo kaasoo ka caawin kara gubidda baruurta caloosha sidaasoy tahayna cabitaanka shaaha waa mid wax ku ool ah marka laga hadlayo saliidda gubanaysa ee jidhka sida laga soo xigtay tirakoob lagu sameeyay dad joogta oo caba shaaha 226 kaloriya ayay gubaan maalin kasta waa marka laga hadlayo cabitaanka shaaha bigayska haddaba maalin kasta cab 4 ilaa 5 koob oo shaaha ah laakiin sonkor yuusan lahaanin ama aad ugu yaree sonkorta sidoo kalena waxa aad ku dadaashaa shaaha aad cabaysaa inuu noqdo mid dabiiciya waxaana ugu wanaagsan ka dabiiciga ka lagu keeno jawaanada waaweyn hana isticmaalin shaaha si joogto ah waayo maadooyin badan ayaa ku badan shaaha kuwaasoo caata saa'ida ka dhigi kara